mucaaradka Soomaaliya ayaa maanta war-saxaafadeed ay soo saareen waxa ay ka soo horjeesteen sidoo kalena ay dhaliileen guddiga doorashooyinka uu magacaabay madaxweynaha Soomaaliya iyo sidoo kale xeerarka doorashooyinka oo ay sheegeen in ay ka dhalan karto khilaaf siyaasadeed iyo sidoo kale mudo kororsi waxaana ay sheegeen arintaasi abuuri karto amni darre dalka uu soo wajaho. war-saxaafadeedkan waxa si wadajir ah u soo saaray madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed, ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya علي خيري iyo xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxaana dhamaantood ay sheegeen inay ka soo horjeedaan guddiga doorashooyinka uu magacaabay madaxweynaha Soomaaliya kuwaasi oo loogu talagalay in dalka ay ka hirgeliyaan doorasho qof iyo cod ah guud ahaan dalka Soomaaliya waxaana ay sheegeen arintaasi aysan la aqbali karin waxaana ay ugu baaqeen shacabka Soomaaliyeed iyo saamilada siyaasadda in arintaasi si wadajir ah looga soo horjeesto. mas'uuliyiintan ayaa waxa ay sheegeen in sidoo kale xeerarka doorashooyinka ay yihiin kuwa baalmarsan dastuurka Soomaaliya waxaana ay sheegeen in laga fiirsado dowlada Soomaaliya arintaasi aysan ku dhaqaaqeen. waxa ay sheegeen in guddiga doorashooyinka la magacaabay yihiin guddi ku dhisan rabitaanka madaxweynaha Soomaaliya iyagoona uga digay dowladda in arintaasi ay ku dhaqaaqdo waxaana ay sheegeen in aysan iyagu soo dhaweyneynin sidoo kalena arintan ay ka dhalan karto amni darro siyaasadeed iyo in la isku khilaafo siyaasadda Soomaaliya ka jirta iyo wadajirka lagu wada joogo waxaana ay uga digeen dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in albaabada iyadu ay u soo xirato go'aanada laga gaarayo arrimaha doorashooyinka ee Soomaaliya. waxa ay sidoo kale ay ku baaqeen in la isugu yimaado wada hadallo xal looga gaarayo sidii lagu heshiin lahaa doorashada ka dhacaysa qaabka ay noqonayso dalka Soomaaliya. dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya iyo siyaasiyiinta qaarkood ayaa siyaabo kala duwan uga hadlaya qaabka ay noqonayso doorashada soo socota ee Soomaaliya. qaarkood waxa ay ku taageersan yihiin dowladda Soomaaliya doorashada qof iyo codka ah waxaana ay sheegeen in madaxweynaha talaabada uu qaaday ay tahay mid dalka ka bixi doonta doorashadii xildhibaanadu ay codeyn jireen madaxweynaha Soomaaliya. waxaana la sheegay dadkan ku taageersan dowladda ay leeyihiin shacabka waa inay ku ciilbaxaan kaararkooda ama codeyntooda inay ku ciilbaxaan oo iyagu ay doortaan qofka ay doonayaan. dhinaca kale mucaaradku iyaguna waxa ay ku doodayaan in xilligan aan la gaarin waqtigii doorasho qof iyo cod laga qaban lahaa dalka Soomaaliya iyaguna sheegaya in qaybo badan oo kamid ah dalka Soomaaliya wali gacanta dowladda ay ka maqan tahay sidoo kalena dadku aysan heli karin kaarka codeynta doorashada waxaana ay ka cabsi qabaan sida ay sheegeen in dowladdu ay ku shubato doorashada waxaana ay leeyihiin waxa loo baahan yahay in doorasho loo wada dhan yahay oo xitaa ka bedelantii hore laakiin mucaaradka iyo sidoo kale dowladda Soomaaliya ay heshiis ku yihiin in dalka laga hirgeliyo. marka laga tago hadalladan ka soo yeeraya isdaba joogga ah mas'uuliyiinta mucaaradka ah ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dhinaca iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isagu dowladdiisii isku dayday doorasho noocan oo kala oo doorasho qof iyo cod ah inay dalka ka hirgeliso. madaxweynaha iminka joogay ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa arintaasi ka soo horjeestay waxaana uu ku tilmaamay in doorashada qof iyo codka ah uu damacsanaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay ahayd xilligaasi marka uu mucaaradayay doorasho aan loo dhameyn sidoo kalena Farmaajo uu doonayo in doorashada uu ku shubto. hadda madaxweynaha waxa la leeyahay shalay waxyaabihii uu diidanaa ayuu maanta rabaa inuu marsiyo dalka arintaasi ayayna mucaaradku leeyihiin hadii madaxweynuhu uu doonayo in doorasho qof iyo cod ah ama doorasho uu rabo inuu dalkan uu ka qabto in la isugu yimaado miiska wada hadalka. dhinaca kale waxa wali maqan oo heshiiska doorashada qofka codka diiday maamulada Puntland iyo Jubbaland iminka madaxweynaha cusub ee la dib loo doortay Axmed Madoobe waxa uu sheegay hadii dowladda Soomaaliya ay doonayso in wada hadal ay la furto inuu diyaar u yahay in uu la hadlo laakiin ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamza Cabdi Barre oo dhawaan yimid magaalada Nairobi iyo sidoo kale halkan ay ku kulmeen odayaal dhaqameed ka socday dhanka iyo Axmed Madoobe inay ku heshiin waayeen sidii xal looga gaari lahaa dib u doorashada madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo dowladda Soomaaliya ay qaadacday sidoo kalena ay sheegtay in Axmed Madoobe la soo xirayo.
dhinaca kale Puntland waa ay diiday waxaana ay sheegtay inaysan aqbali doonin qodobo walba oo lagu heshiiyo oo ku saabsan arrimaha doorashooyinka inta ay ka maqan tahay miiska wada hadalka dowladda Soomaaliya ayaa iska indhatiraysa labada maamul goboleed Jubbaland iyo sidoo kale Puntland waxaana la leeyahay ama loogu baaqayaaba in ay miiska wada hadalka keento sidoo kalena mucaaradku ay ka soo qayb galaan arrimaha looga hadlayo doorashooyinka Soomaaliya si wada jirana xal looga gaaro sidii doorasho looga qaban lahaa ama loo dhan yahay looga qaban lahaa guud ahaan dalka Soomaaliya